السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يالكو سو دhowaada labeynta bulshada. Maanta waxaa martin oo ah Cabdirasaaq Xasan Jiddi oo ah qoray buugaagta kala ah bilan aleel iyo sidoo kale buugga kale la yiraahdo 707 xigmadood. Cabdirasaaq waxa uu ka mid yahay dhalinyarada labeynta ah ee bulshada indhaha u ah sidoo kalena arrimaha mar waliba ama waaqica taagan ka hadla si qurux badan uga falceliya. Maanta qoraa Cabdirasaaq waxaan kala sheekaysan doonaa arrimo ku saabsan guurka dhalinyarada iyo fikradaha ay dhalinyaradu ka haystaan guurka iyo sida ay xaqiiqadu tahay. Waxaan rajaynayaa talooyinka iyo arrimahan halkan uu ka sheego in dhammaanteen ay noo noqon doonaan faa'iido. Marka hore ila soo dhaweeya Cabdirasaaq Xasan Jiddi. ma ku dhib qabtaa finan haaro jirka oo ku gaduuta ama qalala halka dhabta ah waxaa idin haysa BQ Cosmetics waxaad ka helaysaa kareemo tayo leh oo dabiici ah laguna sameeyay Yurub saliidda timaha ayaad sidoo kale ka helaysaan wixii faahfaahin kala xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda وما سنتهي إبراهيم عثمان أفرح إبراهيم نلشة ورنتي يعني هلا أبورة مارت ما أنت برنامج كذا مرتكوه برنامج كذا لو أنت نحب سوى هذا اللي مقالة عن أبورة كلي الواي مرك هذا ما سنتهي waayahay aad u mahadsantahay Jiddi sharaf ay noo tahay laftigeena inaad marka hore casuumadeeni aqbashay runtiina na soo ajiibtay mawduuca maanta aan ka wada hadlayno arrimahan guurka dadku aragtiyo kala duwan ayay ka haystaan dabcan waxayna u baahnaan lahaayeen inta badan dhalintu qof haga oo arrintan uga soo horreeyay adigu waxaa tahay aaba Soomaaliyeed arrimaha guurkana in badan dabcan xog kugu filan waa aad ka haysaa waxaan rajaynayaa dhammaan su'aalaha halkan aan ku soo diyaarinay weydiimahoodu inay wax badan ka tari doonaan caqabado maanta jira iyo fikrado maaragtay wanaagsan in maaragtay ama laga dhex qaato su'aasha ugu horreysa oo rabo inaan ku weydiiyo guurka waxoogaa culaysaa ka taagan la yiraahdaa dhalinyarada markaad u fiirsato maxaad is leedahay maanta guurka way ka hortaagan tahay maxaa ka hortaagan is leedahay guurka dhalinyarada maanta إبراهيم وما سنتهي هرت مرك جور كلا هذا ضدكو اسكو ظروف معهن دلنيردنا اسكو واقع معهن waayahay marka caqabaduhu way kala duwanaa karaan waxayna ku kala xirnaa karaan waxyaabo fara badan oo kamid yihiin deegaanada da'da qofka saameyn badan oo kala duwan marka aniga khibrad ahaanteyda waxa jira caqabadaha marka la dhaho wax badan caqabadaha oo keeni kara waxyaabaha kamid ah caqabadaha keeni kara waxaa kamid ah horta koow cabsi qofkii inuu guurka ka cabsado maxaa yeelay waxaa la dhahay qofku wuxuu nool yahay ishiisa macnaha inta aragto nool laakiin dhagtiisa qofka way ka da'dheertaa waayahay marka qofku maalin walba laga yaabaa inuu idaacada ka maqlo ama ka dhageysto qoysas Soomaaliyeed oo isku dhagan inta badan dadka Soomaaliyeed soo ma wariyaan marka qoysasku ay faraxsan yihiin oo qofka farxadiisa waa la doontaa waayahay marka barish bulshada waxaa imaada kaliya ku isku soo dhacay kuyo maartay isha noloshooda hore ka shaakeynaa qofkii marka halaagaas oo dhan goobjoog soo noqdo waxa laga yaabaa wax yar inuu dib inuu u baqo baqdinta inuu ku basato si fiican Waayahay. laabto marka factorskaas taas way saameynta kamid tahay midda labaadna waxay tahay khiyaal tira badan oo dhalinyarada qaar u sawiran oo ay rajeynayaan maaragtay qofku markuu helo lacag tira badan oo ku guursan karo waxaa laga yaabaa maalinka guurkiisa keliya inuu qorshaysto in lacag ka badan $20,000 $30,000 uu kharash gareeyo waayahay sida uu jeclaan lahaa inuu guursado ay qalbigiisa ugu sawiran tahay haye marka carabtu waxay dhahaan raas bacda almaal haye marka hore guurso kadib lacag raadi si fiican laakiin haddii aad tirahdid maal bacda raas oo marka hore maalka raadisa kadibna aad dagaa aad tirahdid taas waxaa u maleeyaa bidaar labada dhinaca ninkaa soo dhici doonta waayahay Cabdirasaaq aad u mahadsan tahay aragtiyo badan ay dadku ka qabaan lamaanaha midowgooda labadan qof markii ay waqti isgelinayaan oo ay dabcan ay dadaal bixinayaan oo ay isku soo dhawaanayaan in jacaylka xoogga la saaro marka hore iyo in isfahamka xoogga la saaro mideebaa wanaagsan mideena ku tarin lahayd adiga ahaan waxaan is leeyahay labada midna waa doorasho midna waa waxa ku qasbanta tusaale isfahamku waa wax la dooran karo waxaan is leeyahay qofkii inaad u fiirsato waxa aad adigu ku fiican tahay inuu ku fiican yahay waxyaabaha ku dooran lahayd oo kale inuu ku socdo taas waxaan is leeyahay wax laga shaqey karo waaye laakiin jacaylka marka la dhaho waa dareen aysan badanaa dadku aysan ayagu xakumin oo macnaha oo
waa ogtahay intaasoo buug laga qoray intaasoo kun oo qofooda ka hadashay haddana meel lagu saleeyaa la waayo marka maxaa la iska fahmaa marka la dhaho tusaale waxaa jirta maamaha dhahee guurku waa sida god gacanta loo ridanaa godkaas waxaa maaragtay waxaa ku jiri kara abeesa ku jiri karta marmarka qaarna dheemana ka soo baxsan karta waa god wax ku jira aadan ogeyn laakiin probability-ga aad dheeman kula soo bixi karto way yarta marka la yidhaha la isfahmo qof walba horta guurka ka hor wuxuu soo bandhigaa intiisa qurxan marka la isballamiyo ninku waa soo labisanaa barafuun isu soo buufinaa gabadha waa lamid ubaxaa la isu hadiyeynaa guurka kadib waxaasoo dhan ma jiraan sheeko waxaa jirta gabar lasoo guursaday waa marka lasoo guursaday kadib ninkii weydiisay markuu ayaan qabay awa ubixii iyo maaragtay hadiyadihii iyo faraantii iyo barafuunka waxaa keeni jirta markaas wuxuu dhahay gurigaa maaragtay kalluun malaayga marka lasoo dabaa hilibaa loo tuuraa waa lasoo qabto malaay lasoo qabto hilib lasii siinaa maaragtay kalluunka haddii lasoo qabto maxaa u yaalla maqaarka in laga sii waa tii marka tii waay marka hal isfahma haddaa dhahdid qur-aankana waa kasii digay meelaha qaar in macnaha dadku ay waqti isku dhumiyaan maxaa la iska fahmaa wax meesha yaalla marka sababtoo ah qofkii guurkii ka hor u soo qurxinaa dabeecadiisa saxdaana waxa lasoo baxay guurka kadib waxaa la dhahaa marka guurka saxda ee hagaaga ma ahan marka ay ishelaan lamaanaha meel walba iskaga mid ah laakiin waa marka ay lamaanuhu ku kala raaxaystaan kala duwanaashahooda ayagoona shareecada ku xadgudbayan laakiin gabadha waxaa laga yaabaa inay cuntada nuuc jeceshahay wiilka waxaa laga yaabaa inuu nuuc jecel yahay waxaa laga yaabaa waqtiyada qaar hurdiga kale in la qas inaysan jecleen waxyaabaha dhaqanka kamid a inay ku kala raaxaystaan kala duwanaashahooda markaas marka guurguuraysay marka su-aashaadi haddaan usoo laabto ahayd maxaa la isku fahmi kara oo jaceylkii fahamka ka hadle waxaas leeyahay arrinta fahamka aad u adkaa doontaa labada qof inta is jeclaata is guursato waa laga laakiin markaad tirahdo qofkaana fahma qofkina guurka ka hor oo si fiican usoo labisana si fiican isu qurxina guur kadibna waxuu imaan doonaa isla aqoon waxaa laga yaabaa waqti badan inuu kaa qaato marka waa fahamtaa istiraa kadibna guurka natiijo kale ay soo baxdo dabcan aragti kalena waxaan arkay dhahaysa dad badan oo isjecel ayaa nolosha ku kala tegay sababaha ay u kala tageenna ma ahan nacayb uma kala tegeen oo isjecel yihiin weli laakiin waxay u kala tageen baa la leeyahay waa isfaham darri marka iyagu waxay leeyihiin isfahamka ayaa mar weliba ka mudan in jacaylka waa dabcan waa dareen isaga ku haga laakiin isfahamka sidaad sheegtay waa dabcan waa wax la abuuri karo waa wax waqti la gelin karo marka waxay leeyihiin isfahamka ayaa mar weliba ka awood badan jacaylka dadku waxay ku kala tagaan bay leeyihiin marka isfaham darrada inay isfahmi waayaan inay isdareemi waayaan ama inay is ixtiraami waayaan ixtiraamku xitaa waa qodob kaloo muhiim aan u malaynayaa marka dadkaas maxaa leedahay isfahamkaa ka xoogan jacaylka arrintaa markii wada noolaasho la gaaro horta guurka kadib wax walba isbedelayaan waxaa la rabaa marka hore inaad ku talageshid waxaa la socota qof bini aadam waay sida adi aa ka rabtidna ma noqonayso khaasatan wiilasha gabar wuxuu leeyahay gabadhaas uu la socdo waa qofkaas dhexdiisa ilmo lagu abuurayaa macnaha dabiicadiidii isbedelaa wejigeedii isbedelaa waxay u baahan tahay nolosha guurka kadib ah mas-uuliyad marka isfahamka iyo tacadarka oo dhan waxay isu bedelaa mas-uuliyad gabadhii qurxaneed ee shalay markii aa wadada ku arkaysay xijaabka guduudan wadatay lacadiinteeda aa ka heshay ee taagnayd way isfurfuri doontaa waxay isu bedeli doontaa hooyo subaxii waxay agtaada ka soo kici doontaa iyadoo oo si kale ah waxaa la rabaa xaaladahaas oo dhan marka ay maaragtay ishaag ilmaha lacdo marka ay uurka qaado marka intaas oo dhan waxay rabaan keer iyo mas-uuliyad ay rabaan isfahamka marka wuxuu noqon doonaaba isfaham ee duruuftu keento waxaa soo bixi doono marka ma ahan dabeecadda gabadha ma ahan oo la ogyahayo dabeecadda gabadha waxaa lagu tijaabiyaaba xaaladahaas haddaan kasoo sheegay laakiin waxa in la ogaado la rabo soo bixi doono bannaanka imaan doono waa midda ninka meeshaas marka waxaa ka caddaa doonta ninka mas-uuliyadda asigana fuuri doonto mas-uuliyaddaas oo marka la fiiriyo gabadha guriga gudihiisa midda ay ka hayso iyo midda jirkeeda ay ka hayso piece of cake ay noqonaya midda ninka cad doolshay noqonay marka halkaas waxaa kusoo baxo badanaa dabeecadda ragga waxaa arkay nin xaaskii uu qabay 3 cunug iyadoo u haysa ama 4 cunug u haysa midkood uu gurguurad barana midkood uu marad uga dhagan yahay midkood laga yaabo inuu jiran yahay inuu naa kala aqal gala arkay mas-uuliyadda meesha ku dayacay isfahamka lagu sheegay marka waxay tahay xaaskaaga inaad la garato xaaladaas marka ay ku jirto garabkeeda ay istaagto intaas waad fahamsan tahay waayahay markaynu nimaano bannaanka markay dhalinyaradu ka joogaan guurkaa la yidhaahdaa iyo marka xaqiiqada la joogo
waa laba xaaladood maxaa farqiga u dhexeeya filashada markaad fiiriso waxaa la dhahaa maamaha waxay tiraahdaa biyo badan bar waa calow hadal badan bar waa been haye banaanka marka la joogo hadal badana meesha lagu hayo way wax inta badan laga sheekeeya waxay tahay saasaan yeeli lahay intaan digi lahay daaradhaa dheeraa la dhisaa waxaa laga yaabaa gabaraa jeceshaa inaad u dirtid wiil hindiya oo gabar hindiya maaragtay dubay dalxiis u wada video wada halkaasoo kale aan guyaa inaad dhahayd si fiican laakiin berri markaa aad maaragtay isheeg magaalo soomaaliya ka mid a aad joogtid aha shirkad oo adeerkaa liyaa shaqo inta lagaa siiyo $200 lagu qoro si fiican xaaskana ay biilkaa rabto xafaayad iyo dhuxul lagu weydiiyo guriga kiradiisa lagu weydiiyo korontadii caawa ay shirkadda ay leedahay waa laga jarnaa haddii kale lacagta soo tur markaas waxaa la rabaa xaaskaaga inaad dubay u wadi karta in kale inaad ogaatid si fiican khiyaaligii waa laga soo khiyaaliga waa la soo haye sida runta ah waxay tahay isfahamka wax lamaanaha ah qofka aad guursanay marka hore waa inaad fahantaa horta ma jiro qof asigoo taajira macnaha dhashay soomaalida sida caadiga ah ayagu waxay isguursadaan ama jaamacadihii soo dhameeyey amaba mushaar yar markaas oo u bilowday inta badan isguursadaan intooda nasiib kale waaye macnaha inta kalena inta ka fiirsashaa waqti uga dhamaadaaba intay ka fiirsanayaan qofkii guursanayeen intaas guursata marka waxay wajahaan daruufo adag waa inaa marka qofkii daruufta la bilowdid tusaale ragga taajiriinta Soomaaliya marka la sheekeysatay qaarkood sida ay ka sheekeeyeenba markay guursadeen kadib ay lacag heleen laakiin waxay heleen xaasas og meesha ay talaabta ka qaadayaan na garabtaa meesha aad taagantahay inay og tahay waxay tahay marka meesha u socotana ogaa karta marka waxaa guursatay gabadhaas adigana lacag badan ma haysan marka meeshaasaa ka bilaabay meesha lagu jabo marka aan kuu sheego meesha lagu jabo waxay tahay marka kow la guursanaaba in sida boqorada loo guursado si fiican marka gabadhi marka aad guurkeeda $20,000 amaanta aad ku dhigto expectationkeeda ayada ka dambeeya nolosha guurka ka hor high waa marka maalinkii guurkaaba intaan la dhigay wixii kasii dambeeya nolosha waxa waaye ku taal nolol oo waxa waaye dabaq la degaaho maaragtay guur intaas ku kiraysan oo ay sawiranay marka si fiican waxaa laga yaabaa nin arooskiisa lagu dhigay hoolalkan waaweyne magaalada ee lacag intaa rata lagu kirayna fanaankiisa saakiriinsa lagu soo ijaara habeenkiina toddobaad kadib gabadhii inuu guri bacweynaa dejiyo aad iyo aad marka waxaa isbedelaya marka filashada hore oo guurka laga filana waxay tahay nolosha TikTok ka jirto ama baraha bulshada ka jirto oo gabadhiyo ninkii guursatay soo markuu shaqada aadaa si macsalaameynaya baawur qurux badan asigoo ku socdo boorso suud asigoo wato oo maarta laptop iyo wax uga buuxaan shaqada si aadaa waay laakiin sida saxda waxay tahay ninkii baawur bi alo daaqada ka soo qabsan doona shirka soo fadhiisan doona baawurkaas suuqa xoolaha ka soo bixi doona suuqa bakaara oo soo socdo meesha ku soo hiiraysan doona galabkina maartay isheeg asigoo bac timir iyo kuwada maartay isheeg yaani oo bakaaraha kasii gudo sii bixi doona daati waaqicigaas marka halkaas waa inaad ka bilowdid nolosha kadibna aad ogaatid meesha joogtid kadibna aad lacag seef garaysatid kadibna mustaqbalka si adag aad u wajahtid oo maartay jijaleeca salayn oo imaam shaafici wuxuu dhahay kun rajulan ala al-ahwali jalidan wa shamtuka samahata wa sakha rin adag noqo oo howlaha maartay wajah saas way aad si fiican u fahmintaas dabcan waana arrin meesha ku jirta qof markii hore lagu soo guursaday kharash aad u fara badan hanti badan baxday filashada qofkaasi uu yeelan karaa waxay noqonaysaa filasho aad u weyn dabcan hantidaasaa laga bixiyey waa in dabcan nolol waxaad ku noolaan doontaa waxaa jirta sheeko yar oo hadda ka hor ah gabar wiil waxay isku guursanayeen meel waxaan ka qayb galnay marka meherkoodii markaasaa ninkan iska tabaryar oo ahay oo maaragtay aroos xataa aroos iska xaafadeeda la iska qorsheeyay gabadha waxay sheegtay meheraan marka caqliga aan geliyay oo xataa magaalada hoolalka waaweyn oo ku yaalla la iska agaad macna la isku xir waa yaabna marka wadni waxaa dhaca ninkan geesoo coolay waa iska cayd waxaas waa meesha ka sheegay tiriyo intaan dadka cadowga iga jabi nacabka lagu jibinaa intaas arrintaas waa taagantaa maanta ninkii marka sidii ku aroosay gabadhii nacabka lagu jibinaa ku aroosay gabadhii markuu guri dejiyey todobadii markay ka baxeen kadib waxay dhahday caawa waxaan rabaa inaa baabuur weyn oo saaraf ah ay soo ijaarto maaragtay xeebta ii wado cadowga xoogaa igu dhega hadlayaan inaan iska jibiyaan nacabka iska buufiyaan rabaa ninkii marka sidii uu lacag tira badan kula qarshatay gabadhii waday biiso habeenkii u gaday fiidiyoyaal la duubay TikTok lacagtii oo kirada lagu dhiibi lahaa korontada yarta hayada maaragtay ya way soo laabtay marka habeenkii 4 saac habeenimo marka gurigii oo keenay gabadhii waa qanacsantaa u sir gabadhii waxay dhahday nacabkii oo jiifta ay keentay nacabka saacada waa hurday habeen dambe ayagoo soo jeeda nacabki aadana la rabaa inay soo isu bubsi ha marka saada cali maray hadda ka hor heesiisana
laakiin siyaasadii uu dan leedahay ayada laakiin gurigoo mugdiya biyuhuna go-een laan gurusal gado guuxiisa mood gob inaad ku tahay geeska afrika saas madaxdii waddankana noocaasi macnaha u dhaqmayeen berigaasoo dadkii oo baaba ah baawur buruuf oo maaragtay daaqadu ku xiran yihiin meelaha noloshii ka soo bilaabatay marka madaxdii waxay usoo daadegtay bulshadii waxaa la dhihi jiray dowlad wanaagga hal daadijiyo faankii lasoo daadijiyo hadda faana nala soo daadijiyo faankii waxaa noogula keenay soo lama dhihin federaalka tuulooyinka la geeyaha faana naloo keeno waa arkay madaxda qaar dhalinyarada dowladda iyo u shaqeeya ayagoo iskugu faanaha la arko dhahayaan ebelo aroskeyga waxaa lii xiro marka almugaram waxaa laga yaabaa dadkii maalinkaas luguyay inaad ku jirtid oo maaragtay ama jaamacad ka tahay ama shaqo ka tahay nin nafaanay u tahay rag uu kula xisaabtama uu leeyahay intee lagu xira adiga jidcadii oo yarkaa waxaa lagu xira buluxubi ku yiri laakiin aniga waa dad weyn lay kala xiray bajaaj la kullu go'ay maama kullu go'day tiya marka waxay imaatay dhaqaalaha xitaa meelahaas kale ku khasaaray aad iyo aad marka taas ka nimaadno arrinta filashada dabcan saaxiibada waxaan aad u kala dhigtay lamaanaha wiilkii gabadha isguursaday in reerka gabadha lala dego iyo in reerka wiilka lala dego midee mushkilad yar waxaad u fiirsatay dabcan lamaano kala duwan u fiirsatay in badan waxbaad ka qortay arrimaha guurka markaad u fiirsato dhankee mushkilad yar wallahi niyahow waa su-aal ku xiran daruufta macnaha oo tusaale waa markii laga badi waayay saa u fahmaad su-aasha sababtoo ah waxaa mushkilad badan ba inaan labadaba lala degin sida caadiga ah oo iska cad oo banaanka ah ka martid ninka la yiraahdo luqmaan alxakiim ayaa waxaa la dhahay hal laka an taxkuma fatudila bayna annaasi bilxaq waa waxa dadka max kala xakume oo cadaalad ku kala saaraya markaas wuxuu yiri in khayarana rabbi la aqbilu alcaafiya ilaa hadduu khiyaar geliyo midda caafimaadka badanaan doora ah dad kala dhexdhexaadima yirani kala xukun baa wada marka haddii la khiyaar geliyo wiilkii gabadha isqabo yaa la degaysan hooyaa mase cidda wiilka mase cidda gabadha waxaan hubaa inaysan cidna la degin way ku habboon tahay exactly inaysan cidna la degin daruufta haddii ay keento marka oo laga maarmi waayo waxay la tahay in ay ayaga ka heshiiyaan oo dhexdooda ay macnaha isheeg sababtoo ah hadda ma dhihi karno hooyadii halala dego ama aabihi halala dego waxaan aqoon waxaan ku qiyaas qaadano ma naqaan marka qaar cidda gabadha karkar ah marka qaar cidda wiilka karkar ah waxaa inta badan dhaca waxaa la yidhaha carab iyo ilko ayaa wax isugu dhow iyagana waa isqaniinaan lamaanuhu waa iskhilaafaan markaad u fiirsato reeraha soomaalida inta badan waxyaabaha laysku khilaafo maxaa ka mid a niyahow khilaafaad badan khilaafku dhinac walbuu ka imaadaa waxaa keena khilaafka waxaa ka mid a sidaan hore usoo sheegaba xaaladaha gabadha oo isbedeli karta iyo xaaladda ninka isbedeli kara asigoo shaqo ka yimid oo iska istuufsan macnaha guurku sidiisaba wuxuu dhahay nin guurka aad u necbaayo mark twin la dhihi jiray wuxuu yiri guurka wuxuu lamid yahay adigoo dhahay doolashaan jecla kadibna cimrigaa inta ka dhiman doolasho weyn afka lagugu hayo maalin aad dhahday doolashaan jeclaha macnaha markaasaa lagugu waday marka cimrigaa inta ka dhiman doolasho weyn afka lagu saaray lamid soo dhaamaana marka saas u dhaha waxay tahay waxyaaba guur in la kala nafisaa fiican macnaha tusaale xaji waqti shaqada ka yimid jirta waqti kuuliha jirta waqti waxaa jirta oo rabo xisaabaad inuu dejiyo waqti waxaa jirta wax yar oo noloshiisa waqti la qaato oo rabo waa inuu helo gabadha sidoo kale waa la mid ayadoo xaaskaagi ah oo guriga ku joogto maanta inay maartay jikada ku jirtay maanta inay ilmaha kala celinaysay caawa imaatay waa inaa waqti yar ay ka hesho hadal dabacsan ay ka hesho taas mid waaye marka hadda ka hor waxaan ka qayb galay gar oo niman odayaala maartay sheeg ay qabanayeen nin dhalinyaro ah iyo xaaskiisa waxay isku qabsadeen telefoonka waxay isku qabsadeen telefoonkiisa gabar ka soo wacay telefoonkiisa odayaasha waxay sanadka 2014 odayaasha markii waxay dhaheen bismillaahir rahmaanir rahiim ma qoyskii aan isku darnay ee sooriyada dhiibay ee maartay sheeg guurka loo dhigay ee reerka la dhiso labada cid ay midowday maanta telefoonkan yar isku haysta laakiin odayaashaas maanta haddii ay joogaan waxay ogaanayaan telefoonka inuu challenge saxayo waas wala la yaabanaa laakiin maanta waxa ugu badan 70% ay qoysku ku kala tagaan aad iyo aad taas waa tii telefoonada marka ma jirtaa caqabad kale oo labaanuhu yani isku dhacooda sabab u ah factor kale factor badan saameyn ku leh waxa kale oo jira marmarka qaar in dad kale isku diro oo kale oo inta badan Soomaalida oo ku aragtay dadkii isku keendirin dab dhaxdeena laga shidin ay wadahayaan
marka dabka lagu sheegayo midka dhuxusha caadiga ah iyo la isku sheegay laakiin mid ka sii daran waay هذه waxaa hadda kahor waxaa dhacda sheeko oo qofka waa la isku diri karaa sax waay maskaxdiisa caawa wax waa la soo sheegi karaa sheeko khiyaal hadda kahor fiction waxay ahayd shaydaan iyo waxaa tartamay islaan cajuusa ah marka waxay ku tartameen anigaa kaa maaragtay iftaans dadka anaa duufsan kara iyo anigaa duufsan kara waxay isku qabsadeen marka nin maaragtay sheeg harqaanla ah oo harqaankiisa iska tolana iska shaqaysana ninkaas wuxuu dhahay inta u tagtid islaantii waxay shaydaan ku leedahay ninkaas inta u tagtid xaaskiisa ku dar shaydaankii marka waa baxay ninkii u tagay wax iska fududayo arrintaas ninkii oo marka inta ugu yimid xaaskaaga waa saan ninkii markuu mar walbaba markuu shakiyo markuu waswaasoco acuud billahi min shaytaan rajiim uu leeyahay shaydaankii meesha ka carara قاعد shaydaankii qaca ka yeertay soo carray islaantii u yimid bas waa gacana ka taagay galaaday islaantii ninkii u tagtay iskama waalinba agtiisa fadhiisatay maandhow iyo war waa la sheekaysatay waxay tiri waxaan rabaa inaan ii tasho dirac gabar 23 sano jir ah ugu talagalay dirac cagaar oo qurux badan ninkii markaa harqaanka tuteera islaantii iskala sheekaystay wuxuu dhahay yaa u wadaa waay waxaan u wadaa gabar maaragtay wiilkeyga u jeclaa jira haddana nin kale uu guursaday waaba la guursadee intaa uga daba wadaa maya gabadhaasu wiilkeyga niyadda ku haysaa iyo niyadda ka jeceshaa iyadoo la qabo ilaa hadda ma isa hilmaamin ninkii marka waa la yaabiyey diricii u dhameeyey wuu siiyey islaanta waa soo baxay diricii soo qaaday ninka harqaanlaha guriga uu deganay ay timid waa gargaraacday waqtiga salaadaa la joogay biyaan kuwiisa qaataan rabo gabadhiyaa ka furto marka ninka harqaanlaha uu qabo gabadhi waa iska marwoog biyihii siisay islaantii waxa weyse qadaa iska dhigtay diricii waxay ugu tuurtay sarata hoostiisa habeenkii marka ninka harqaanle iska marwoog oo guriga yimid oo casheeya diricii meesha la arko sheekadii maanta ku soo dhacday gabar oo wiilkeyga oo maaragtay sheeg jeclaan jiray oo laga arooso oo haddana wiilkeyga xiriir leh ayaa u diray ninkii asagoo gabadhii meesha ku furo subax meeshiisa shaydaankii marka kor ka daawana waxaa la yidhi shaydaanka buuggii qalina soo qaata cashiradan waa barnaa u dhahay shaydaankii u imaatay marka waxay tiri hadday xaaladda meel halisa taagan tahay hal arrin ma samayn kartaa haddana maxaa waaye ninkaas xaaskiisa ma soo celi kartaa shaydaanku waa yaabi bismillah tan waxu dhahay bas waay wax xataa aan maqla ma aanu dhaha cilmigan waa iga badayo dhahanay gacan u taaga macnaha indhaha ka fiirsay dhahda marka ninkii harqaanka tala subaxi ku xiga waaya ay u tagtay xaloo kale xaaskiisa soo furo markuu aragay ninkii assalaamu calaykum wiilkeygi wacalaykum assalaam wiil shalay maradii ay tasho quruxda badnay gabar qayr qabta ah oo aan u duceeyo maskiina oo guri meeshaana degan aanta u gargaraaca salaadii igu gashay aan gurigeeda ku hilmaamo maradii ninkii wuxuu qaladaa samaysay ninkii xaaskii qalad samaysay qaladaa ku furtay xaas wallahi mashalla meesha ma tagtaa marka waxaa ogaataa halkaas meel intaas yartaa ay wax dhan shiran yihiin macnaha hal maraa qofka maskaxdiisa isla marka ninkii waa carriya xaaskiisa soo ceshta aad iyo aad marka saddexeeyaha laftigiisu waa faktor weyn oo saameyn leh oo saddexeeyaha ah weliba waxaa laga yaabaa guurka qaar wuxuu ku burburaa waxaan soo maqlay waxaan islaan ka soo maqlay iyadoo saas dheh hebel cabdiraxmaan liraa saas sameeyay cabdiraxmaan ninkeedii u malayna ala yaabaa ninka laftiisa meel cidla in laga qabsado caqabado badanaa marka keeni kara la isku dhaco aad iyo aad runtii waana arrimo jira baraha bulshada ama telefoonada iyo markii la yimaado iyo saddexeeyaha waa arrin aad runtii u xun inta badan isku dhaca markuu yimaado lamaana waxaa inta badan yimaada xujooyin kala duwan xujooyinkaas cabdishaaq waxaa ka mid ah in la isku xujeeyo passwords ama furasireedyada baraha bulshada ama Facebook ha noqdo ama TikTok ha noqdo ama Instagram ha noqdo iyo meel kasta oo la isticmaalo dabcan sababtuna waxa ay tahay in qofkani uu raadiyo kalsooni midda uu haysta ka weyn ama inuu ogaado qofkani inuu sirka qarinayo in kale marka arrintaas aragti ahaan adu maxaad ka aaminsan tahay in lamaanuhu furasireedka ay wadaagaan waxaan dhihi lahay lamaanaha haddaba aan toos u hadlay waxaan baaq u diraa dhihi jireen moogtaa siyaasiyiinta markay hadlayaan lamaanaha baaq u diraysa lamaanaha baaqaan u diraa waxaa waaye ninkaaga amaba naagtaada xaaskaaga haddii aad ciwaankeeda ama ciwaankiisa furto waxaa ku arki doontaa wax aanan ku raaligelin haddii aad ciwaankii furto waxaad man dakhala maa laa yacnihi
laqiya maa laa yurdiihi qofka hadduu galo waxaan shaqadiisa ahayn wuxuu soo raalli inuu la kulmaa ayuu la kulmay marka qofka waxaa fiican inaan horta marka hore baaswiirada iyo ciwaanada iyo in faraha laga qaada fiican si fiican ayagana waxaa u fiican inaysan waxba kala qarqarsan dadka qaar aa facebook meesha kusoo qoro xaaskaaga ma sii lahayd baaswiirkaaga meelaha ku arkaa mugta baraha bulshada lagu soo qoraa waayahay qofka waxaa soo qora waxaa laga yaabaa waxa keliya haysa inay baaswiirka yihiin macnaha wax kale usaysa marka qof qani ah oo maarata xaaska u joogto awlaad ay ka dhexeeyaan oo shaqa ay ka dhexeyso mustaqbal iyo ahdaaf ay ka dhexeyso waxaas kama fikiro laakiin waxaa ka fikira dadka banaanka joogo baaswiirada iyo ciwaanada haystaa caawa soo siisa saxaab facebook soo qoray xaaskaaga baaswiirka ma sii lahayd dood badan ay marka dhalinay si fiican marka waxaan qabaa baaswiirku waa halis waa laba afle qofka xaaskaaga waxaa laga yaabaa gabar caadi oo shaqo idinka dhexeyso ama walaalnimo idinka dhexeyso oo aad salaantay assalaamu calaykum aad dhahday in caawa su-aal lagaa weydi oo lagu yihahdo gabadha maxaa ku salaantay maxaa kale haddii aysan ciwaankan fur lahayn marka dhibkaan ma aysan arki lahayn danteeda macnaha shaqadooda kale iska qabsan lahayd jikada iska hajin lahayd badkeeda iska karsan lahayd ninka raggaan waxaa u fiican si laftigiisa waxyaabo kala qarqaraa inuu joojiyo ani baaswiiradii arrinteeda waxaan ka aaminsanaha waxay tahay aniga hadda shaksi ahaan ciwaankeyga iyo baaswiirkeyga ciyaalkeyga ahay midka u yar uu yaqaana baaswiirkeyga hooskaaga ciyaara hal arna marka meeshaas ku jirto ah ragganimada waxay ku jirtaa in ninka ragga ah oo xaaskiisa ka joojiyo khiyaanada iyo iska dabuureegka iyo inuu ka joojiyo oo waddo toosoo saxa u ku imaado ma la dhihi karaa xaajiyadda hadda baaswiirkaad adigu haysaa su-aashasaan kaaga jawaabo horta marka hore waxaa fiican sabab lagu weydiiyey baaswiirka inaysan meesha imaan aad iyo aad sababta baaswiirka lagu weydiin karo waxaa kamid a in adigu dhinac suto inaa wax lasii dhuumato luuq lasii galgasho macnaha sababta keeni karta marka hore kalsooni darrada ma ka bilaabato in baaswiirkaa keen lagu yidhaho kalsooni darrada waxay kasoo bilaabataa sababta lagu dhahay baaswiirkaaga ken ay kasoo bilaabataa ay kasoo bilaabmaysa ha marka hore marka taas iska soo sax maxaa keeni kara xaaskaaga inay horta lacag ku weydiiso waxaa keeni karta inay baahi jirto ya xaaskaaga in lagu weydiiyo maanta magaalada baana baabuur aan raacna lagu yidhahdo waxaa baabuur meelaha la aadi lahaa baabuur soo baaswiirka marka sabab waxaa ayadana baahiyaa keenta marka iska dhaaf lagu waxaan ahaan markaa igu soo laabato marka aniga baaswiirkeyga iyo ciwaankeyga ciyaalkeyga iyo xaaskeyga waxna gacanta ku haya meel walbaa laga haya meel walbaa looga jeedaa hadda fariinta ha qorto waxaa laga yaabaa in lagu soo jawaaba laga yaaba waxaan u sameeyaa kuu sheegaa ninka ragga ah marka uu damac kale uu galo oo xaas labaadan guursaa u dhaho mas-uuliyaddeedana uu ka bixi karo waa inuu wadacad ku imaadaa soo dhow walaashaydii naagta xaaskan kalaan wata inaan guursado u dhaho sax haddii laga furso waayo waayo mugta markaas markay maxuu xaaskan igugu soo qorto fariin laguma dhihi karo xaaskaaga labaad markaas laakiin mar walba oo luuqluuqyadaadu ay badan tahay xadiisaaba ahaaba karaahiyo maxay tahay karaahiyadu waa waxay dhacibta dad kale inay kugu arkaan waayahay waayahay waxaa jirta lamaanuhu markay ismaan dhaafaan inta badan waxaa timaada sheeka la yidhaha xoraan ahayd waxaan doonaan sameeyaa heesaaba ayadaa u marayaa fartaan doonaa qoran aad iyo aad taasaan farta ku fiiqaynaa maanta maxay ka dhigan tahay xornimada ereyga xorriyad marka guurka la joogo ereyga xorriyad marka guurka la joogo wuxuu ka dhigan yahay in adiga aada mas-uuliyaddaada qaadato xaaskaaga iyo adiga gurigiina idinkaa madax bannaan gurigiina idinkaa dad adeerkaa iyo abtigaa iyo waxaa laga yaabaa arrintiina way kusoo bixi karaan laakiin sida runta ah meesha loo hooyana waxay tahay go-aanka adiga iyo gabadhaa gaarteen adiga iyo gabadhaa shala dadka iska soo dhex doorateen adiga iyo gabadhaa haddaad kala tegaysiin haddaad isqabaysiin idinkay taladiina idinka goda dadkaas kaloo banaanka yacyaaca iyo dadkaa maalinkii maarata isaga ay soo guursanaysiin idinka daba socdo waxaasoo dhan waxay iskugu soo dhammaanayaan xaqiiqada ah xaaskaaga in adiga ay maarata ishag marashayn iyo kaa rabto biil iyo masruuf adiga ay karaan xorriyadda marka lagu sheega waxay tahay sharciga islaamka intuu kugu baneeyey tusaale sharciga gabadha wuxuu meel saro dhigay gabadha muslimadda ah wuxuu dhigay booska boqorada gabadha muslimadda ah guurka ka hor hantida ay lahayd ayadaa iskale guurka kadibna xoolaha ninka ayadaa iskale meel ay ka jirto islaamka dhexdiisa aan sayin ma jirto arrinta kale waxay tahay waxaa arkay tusaaleena soo qaadanayna gabdhaha caddaanka ah aan badhahna gabdhaha oo kirishtaanka ah oo islaamka aansa ahayn ama diintay rabaan ha haystaano waxaa arkay fiidiyoyaal badan oo tiktok lasoo dhigay ama baraha bulshada lasoo dhigay maalin horena gabar ilhaan la yirahda facebook soo qortay sheekadaas waana wax saxoo jira faraantiga marka guurka u geliyo boyfriendka waxa la yidhahda ama wiilkay saaxiibka la tahay waxa koobaad oo dhaca maxay tahay waxa dhaca waxay tahay gabadhii boobooday marka
yes waa hayaa ilaa way farxee gabadhii aad sababtay la farxay mataqaana maxaa yeelay markii boyfriend iyo girlfriend ahaayeen ayay wax walba soo sameeyeen ninkan gabadhan uu isticmaalay wuxuu rabo ka samaystay waxa kaliya ay ka fikirayso waxay marka ama kugu boodaa maanta hadiiba uu ogolaaday adigoo saas kugu yaqaano oo meel walba kaala dhacay hadduu maanta yiraahdaan guursanaa waa farxaday u tahay laakiin dhanka kale fiiri muslimiinta fiiri islaamka fiiri markaan guursanayna fiiri meherka markuu dhacay wiilka Allah hambaleeya boqorada heshawriya waxa heshay maartay isha gabar heshawla asiga waa farxa gacanta ku dhigto leeyahay sababtoo ah hore ma u taaban hore ma u arkin caawa markuu guriga u hooyaa farxad u hooyaa that's why oo loo dhaho marka qofka jannada xataa la gersho hurdada caruuska oo seexda aad marka xornimada lagu sheegay waxay tahay limitka lagu siiyey inaadan ka gudbin adiga ka talaabi xadka lagu siiyey xadka lagu siiyey wixii uu kuu baneeyey marka inaad si xornimo u samaysato adoon qofna uga cabsanayn oo dad kalena amay wax ku dhahan aan isdhahayn inaad noloshaas quruxda badan aa ku qanacdo maxaa yeelay iskoobka ilaahi subxaana watacaala ku siiyaa ballaaran xaaraanta waa inaa uga deeqtoontaa xalaash marka nolosha waasicay ku noqon maasha allah qiimihii dambaa dabcan soo gaarnay waxaa jira xilliyo kala duwan oo dadka wada nool soo wajaha ma jiraan xilliyo ay xaasku u baahan tahay in sidii hore si ka duwan loola dhaqmo sidoo kalena ninka odayga ah isagana xilliyo gaara miyaa jira oo sidii hore si ka duwan asagana loola dhaqmo mar walba dhaqanka wanaagsan alla dardaarmo quraanka markaa fiirisid waqulna qawlan macruufa lagu leeyahay fa in karihtumuuhunna facasa an takrahu shay-an wayajcal allahu fiihi khayran kathiira haddaa wax ku dhibsato waxaa lagu leeyahay waxbaa ku dhibsanayba laakiin ilahay khayr badan kugu bedela hadal wanaagsan ku hadla inta waxaa lagu leeyahay dhan waa mar kasta in wanaag lagu dardaarmo xaaladaha sii jira marka waxaa la dhahaa Soomaaliya waxay ku maamahan waqtiga iyo ninka ragga way dagaalamaan waxaana guuleystay midka ay naagtu la jirsato ninka ragga waqtiga la dagaalama waayo la dagaalama lacagta biilka la dagaalama kirada la dagaalama wuxuu la dagaalamaa gabadha xididkiisa inuu xariiriyo abti inuu guriga ku marti qaado wuxuu la dagaalamaa inuu isqurxiyo inuu iska gado gabadha hooyadeed inuu hooyadiis ka dhigto gabadha walaalaheed inuu ehelkiis ka dhigto waxaasoo dhan waxaa rabaa gabadha inay ku garab istaagto marka dagaalkaas oo ninkaas ku jiro wuxuu kula jiraa waqtiga waay gabadha waxaa la rabaa marka inay si waqtiga gabadha iyo ninku haddii isla jirsadaan waqtiga way legdi karaan daruufaha gabadha marka aad ay uga badan yihiin daruufaha ninka gabadha waxay u baahan tahay in garab loo noqdo in gaashaan loo noqdo gabadha waxaa soo maraa waqtiga kala duwan xilliyada adagaa soo maraa xilliyo waxaa soo maraa gabadhu aysan hilmaameyn oo waxaa soo maraa markay tusaale foolanay oo kale markay uurka leed oo kale markay culus taho kale jacaylka runtaa marka la ogaado markaas waay gabadhana waxaa la dhahaa weliba xigmad kale waxaa jirta ahayd gabadhan dulqaadkeeda waxaa la ogaadaa marka uu ninkeedu usan waxba hayn ninkan dulqaadkiisa waxaa la ogaadaa markay xaaskiisa xanuunsataa la ogaadaa gabadha ayaa qabta adiga hadda caqabadaha oo guurka macnaha ishag dhexdiisa ah laba caqabada ugu waaweyn marka Soomaaliya la fiirsho waxaa kamid kirada lacagta kirada guriga adiga aad degan tahay oo wax nolosha taabana guriga adiga aad degan tahay adiga aad ku jirtid lacagta kirada ugu jirtid ninka iskala guriga wuxuu ku sii dabaraa ciyaal kale wuxuu ku sii dhiibaa iskool ilmaha iskool ugu sii dhiibaa ama hooyadiis oo miyiga jirto oo biil ahaan meel ugu saaro marka dhulma dhac baa la yiraahdaa si fiican lagama kaftamo waxa kale oo dhanka soo gaargaarso korontadii aad tagto dhafiinus daaraha daarto shumac daaraha daarabto raashinka dhamaada dhir waxaadan ka gaargaarsan karin caafimaadka gabadha qabtid waxa laga yaabaa taleefankaaga maanta $50 iyadoo ku jirto xaaskaaga halkaas ay rafanay wada kale oo ku furan malahan bir shala markii maarta raashinka dhamaado waxaa dukaan kugu dhawaa maarta ruux baastaan tag soo qaata saxalniisi jabruutiyan soo qaato waxa fuuqna laakiin tan shortikaad malaha مسؤوليتك صار مسؤولية شرط كات مالها مسؤولية داس وأنا سيتها أد وجهها قبل ما ركب وقت هذا مارت ساس قدر إنه كلا وإنه نك الرجع وقرب يستاجو لحظة إنه يحرتوا هاي نصيب درو عاجل الرجع مركب إحساس كودي حركة جعران وكله أنت يجلسوا ديبان مروين النقدان ماشي مارت حدراوي وكذا هاي مركب وقبل أمانة وكذا هاي قرن لماذا واتي قرية وارعد حرتية اللي وهلا قصاص حد ما قاب كان لورو قبل Soomaaliya xornimadeedu waxa lagu helay qaryad waxa la gabadha geela boqolka neef laga baxshay gabadhaas oo geeli iyo fardii laga baxshay oo xagtiin korkeeda hadii gaarto xoolihii ku baxay la xasuusto ayaa maracad madax ku xirat markaas ay guumistaa dhagax ku tuuriyeynaysa qarannimada waa tii qaryad weercad xirat
yaa lagu helay qisaasta ragaa tiirka loo geeyey hadmaa qaabkan loo rog hadda odadaas kaga ciyaaraw dha macnaa kood waxaan ku keenay marka gabadha marka uu ammaanayan wuxuu yidhi gabar waatan hooda leh way garays xirxiran tahay weyna guudad bilanta dhaxda way gurguranta garba rogana loo daa asigu gabadha uu jecel yahay markaas ammaanaa moogta laakiin meelaha ugu muhiimsan waxaa ka mid wuxuu yidhi marka geedi lagu jiro marka garangar loo dego iyadu waa ka gaar dumar ma taqaana gucashada gardarrada sokeeyaha uma goora tirisee gogol bay u fidisaa markuu indhaheedu waa goob fuligii ku guushaa marka ugu dambeysa marka wuxuu dhahay geedaheeda waa yeel waatan guuta koristiyo gamba weynta noqoto guddida beesha lagu daro markay duqowdo guuta koris gurigeeda waxaa 200 oo qofood oo reerka oo midba mid abti keenay mid eedda keenay iyo isku wareysanayo waxaa waaye guuta koris iyo gamba weyn ay noqonay markaasaa guddida beesha lagu daray beeshu xataa go-aankii gaaraya wax laga weydiina waay macnaha marka gabadhii noocaas laga raba inay noqoto markii daruufuhu ay dhinac u ridaan oo dhinac kale inta u wareegsado wuxuu raacsanaa gabar kale isku taallo qurux badanoo magaalada inta galo mid kale ish soo qabato xaaskaaga kaa mudan inaad qurxiso xaaskaaga kaa mudan meelaha dalxiiska inaad geyso xaaskaaga kaa mudan u bixi shalay markay gabadha aheedo dugsiga sare ay dhiganaysa ula cararaysa maanta inaa ula cararto sababtoo hadiyad ka qurux badan ay ku siiso awlaada idinka dhexaysa aad iyo aad runtii waxaan filayaa su-aashaas dhammaanteen waan ka wada dharagnay jawaabteeda waxaa la isweydiinayaa guurka qodobada uu ku dhisan yahay haddii aan kuwa ugu muhiimsan aan soo qaadano imise qodob ayuu guriga ku dhisnaan karaa guurkan uu ku waari karaa si dadkuna nooga faa'iideysan wallaahi annaga kulley waalidiinteennii macnaha markay isguursanayeen qodobana ma qoran jirin akoonna lacag uguma jirin jaagag oo maaragtay ishaag ma aysan wadan maaragtay intay ATM tagaan lacag lama soo bixin laakiin waxuu jacaylkooda ku dhisnaa waxay ahayd xalal miirasho daacadnimo sabar isu dulqaadasho adkaysi isku laabxaarnaan intaasuu ku dhisnaa iyo kasii badan oo ah wiilkii gabadha isfaham ka dhexeeya tirada badan marka annagii aan nimaanay waxaa hadda maanta nolosha ay ku dhisantaha guurka uu ku dhisan yahay waxyaaba ugu weyn waxaa ku kaa daacadnimadaas laba qof inay daacad isku yihiin wiilku halgan oo ku jiraa gabadhu inay ugu dulqaadato and the end of the day waxaa waaye halgankiisaas inuu meel ka gaaro rabaa nolosha qof walba hamiyuu leeyahay marka dhallinyaradan hamigooda inay meel fog ka dhigaan dunidu waa hayaantoy meel fogaa loo kala socdaa berigi hore waxaa waaye dadka wax bartay waxay isku ahayd gabadha markaa dugsi dhexa ka baxdo dugsi sare ka baxdo jaamacad ka baxdo aduu bangigaasaa shaqo ka hesha ayaduna xagga ay shaqo ka hesha isguursi doontiinaa la dhahaa taas ayadoo lasoo mara marka guurka waa in la ogaadaa inuu ku dhisan yahay daacadnimada inuu ku dhisan yahay adkaysiga inuu ku dhisan yahay mas-uuliyadda waxa ugu darno waa mas-uuliyadda haddii mas-uuliyadda la waayo mas-uuliyaddu maxay tahay mas-uuliyaddu waxay tahay shalay markaad qurux badneed oo aad labisneed oo gabadha lagugu daraayay oo aabaheed iyo walaalaheed raaliyan kaana ay ku dhahayeen oo hoteelka la joogay sidii loo ciyaarayay iyo guurkaaga sidii loogu farxsanay dadka waa inaad ka dhigtaa inay ugu farxsanaadaan mas-uuliyaddu waa intaas gabadha waa isbedeli dhib badanaa imaana dadka ragga qaar ayaa gabdhihii ay qabeen ku xanuunsadeen asaa waxaa ku dhacay xanuuno aan laga kici karin marka gabadhi shalay guurkaas quruxda badan lagula daray oo dadkao dhan ay raaliga ka ahaayeen berri waa inay raaliyan oday hadda ka hor ayadoo guur looda joogo wuxuu yidhi gabadha waa iska taqaanaa odayaasha markay hadlayaan arooskii wax joogaan marka kood waxay dhahaan dad waxaa ugu geesisan ninkii qof nool soo doon waxaana ugu deeqsisan ninkii siiyey saasay dhahaan waxay kaloo dhahaan marke gabadha laydin siiyey haddii aydan anfici weyso ayadoo sideedaa soo celisho oda kale hadiistaa wir baan sheegi mayno ayadoo sideedaa soo celin gabadha howlaa laga qaban rabaa ayadoo sideedaa soo celi mayno wir aad iyo aad marka magaalada haddaa martid waxaa arkaya dhallinyarada inay guurka kowba ay ka fikirayaan guurkii koobaad oo say kusoo galaanba ilaa yihiinba markay ay isguursadaan oo ninkii shalay intaas arooskiis ku bixiysa oo intaasoo dhiba loo maraayay haddana ay guurkii isku fahmi waayeen nolosha ay kala tagaan marka wuxuu u baahan yahay sabar wuxuu u baahan yahay dulqaad wuxuu u baahan yahay is-aaminaad wuxuu u baahan yahay adkaysi tiro badan oo dhinac walba leh oo nolosha leh oo dadka warxumatushiilkaa dhagaha laga xirto oo hore la socdo iyo mas-uuliyad iyo ixtiraam aada weyn aad iyo aad cabdirasaaq waxaa inta badan dabcan isweydiinaya ninka odayga ayuu ku daydaa markii la joogo lamaana yaad ku dayataa maxaas uga dayataa wallahi su-aashaas su-aalan kusoo talagalay maahin waayahay guurka marka la joogo sooma nolosha guurka waxaan ku daydaa aabbaha xamaaliga ah ee loorka maarata isheeg sokorta ah ee kontonka kiilo ah
oo garabka u saaran yahay ee laga rabo inuu kor inta ula fuulo baqaarka meesha u koreysa u soo saaro waxaan ku daydaa aabbaha gaarigacanka wada ee suuqa bakaaraha dhexdiisa xamaalaha ee lugihiisa asigoo maarata ishaga dhiiqada la dhex maraa lacagta meeshaas uu ka shaqeeyana xaaskiisa u geynaa berrina aanan buug lagu qorayn telefishinna aan laga soo deynin waxaan ku daydaa aabbaha soomaaliyeed ee subaxi markuu soo kaco bajaajtiisa la soo kaco la yihahdo waddada way kaa xirantaa saak oo siyaasi hebelaa meeshan shaah ku caba waxaan ku daydaa hooyada soomaaliyeed ee subaxi markay soo kacdo shaaxa 3 kun ku iibisa waddooyinka dadku markay subaxii soo kacaan ku tashata inta qofooda meesha imaa doonta is ogeyn tiradooda intay noqon doonaan guurkayga wuxuu ku dhisan yahay intaas markaan arko maxaa yeele nolosha waxaa la dhahaa ha fiirin kan kaa koreeya mar walba waxaa fiirsaa kan kaa hooseeyo si aan nimcada ugu shukriso marka intaas oo halgan ku jirta markaan ku tashata kadib anigana waxaa ii soo baxdo in halganka qayb ka ah hadda ka hor tudcaan qoraa wuxuu ahay koley barax tahay badeeca gadow baashaada ka joog bakaara aad iyo aad koley barax tahay badeeca gado baashaada ka joog bakaara aad iyo aad runtii waa meerisi cajiib ah ugu dambeyntii aan soo gaarnay dhalinyarada daawanaysa qaarkood waxay ku haminayaan inay haddii reera yeeshaan qaarna ilaaha isku barakeeyey oo reera iyaga leeleen noloshana inay ku cusub yihiin macquul ah talooyinay u baahan yihiin guurka waa uga horreysay waa ka way aragsan tahay maxaad kula talin lahayd dhalinyaradaasna daawanaysa waxaan kula talin lahayd dhalinyarada horta marka hore inay indhasarcaadka tirada badan iyo expectationka tirada badan expectationka waa rajada tirada badan oo laga qabo wax walba inay hagaagi doonaan inay joojiyaan Soomaali waxay dhahaan shar ku talagal khayr wax ma ka dhib shar u tooghay macnaha shar haday imaato waxa ka dhiileed u tooghay khayr wax ka dhib maadiga mar haduu khayr imaado khayr imaado marka dhalinyarada waxaan kula talin lahay koodi inay expectations ka yareeyaan dhahan qofka ay guursanay ma noqonaysa tirishadii hindiga ahayd ee soo cararaysa ma noqonaysa mid Mareykanka ahayd ee ninkeeda diyaaradda la saaray waa gabar Soomaaliyeed oo jilbaabkeedu u weyn yahay oo subaxna iskoolka aado waxa ay sheegayna aan la socon una baahan nin dhaqda ee biilkeeda u soo dhiciya ee habeenkii u tuura ee romantic lagu sheegay agteeda uu ka yahay caawa camuulada dabka ma ku saaran tahay cunugaaga masaasada caanama ugu jiraan gabadhaas ameerku sugay waa ina ogaatid iska dhaaf markay khiyaalkan iyo labiskan kala tirada badan iyo magaaladan la marmara maalinkii kugu gaarta labiso laakiin hadda guurka ka dhabay gabadha ay guursanayna ha ahaato gabar asturan oo shariicada wax ka taqaano oo markay ugu yartahay xad idin kala celiyo taqaano oo haddii aad maarata aayadaha ilaahay quraanka u soo qaadatid الرجال قوامون على النساء الى قرانك انتم كهل وقيسك maarta laga sheekay tira macnaha isaga فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله inta sa kugu filan waxaan kula talin lahaa marka inay mar gabdhaha ay guursanayaan iska fiirshaan gabdhaha laftigooda ninka ragga ay xulanayaan inay meelo badan sidaas ay ka fiirshaan qofkan ma yahay qof waaqica qofka tahay kugu aqbalsan ma yahay hadii maanta baraha bulshada aad ku jirto ama waa si kala magac u leedahay ama bulshada si kala wada muuqato qofkan wuxuu kugu rabiyaa magacaas wuxuu kugu rabiyaa lacagta aabaha uu leeyahay wuxuu kugu rabiyaa adiga shakhsiyadaada hadii uu kugu rabo sidaa tuu kugu aqbali doonaa mas'uuliyado iyo shuruudo kala jira oo la isku sii aamini karo qofkan meherka ku qabana kadibna waxa xigi doona nolosha hadda aan ka sheekeynino ayadana waxay u baahan tahay ambaqaad iyo geedi dheer maxaa yeelay waxa dooratay qofka marka dooratay cimrigaaga inta ka dhiman qof aad subax walba iska soo horbixi doontaan subax marka wurdada ka soo kacdo miraayad uma baanid saa ku dhigi doona ishaan fiisha kaaga jira iska bixi qofkaas marka waa inuu noqdaa qof aad jaanibiye badan oo nolosha aad iska fahmi kartaan way dhacdaa marmarka qaar in qof si booda ah ee laba qof isla kulmaan kadibna gurkooda oo hagaago oo meelo badan laakiin ma badna nasiibka ku dhici karto uu yar yahay macnaha marka labalabeynta tirada badanna oo guurka laga labalabaya laftigeeda waxay dib u dhigtaa guurkii dib u dhigtaa haddana wuxuu rabaa qof walbo dhalinyaro ah inuu shaati u caddaado xafiis oo u shaqo tago gabadha oo qabana guri dabqa oo maarta inta soo biyaana oo dajiyo subaxi markuu soo baxaa baabuurka furiisa ay soo tuurto gaari banaanka yaal oo kacsado suud oo saas ma nolosha walaalayaal noloshu waxay tahay inaad gurigaaga bacweynaha ah ku kalsoonaato subax kalsooni aad uga baxdo waxa idinka farxad badan ninka bajaajlaha ah ee saaka markuu gurigiisa ka soo baxay canjeerada iyo maarta iyo sheeg dabka gabadha ayadoon shidan ay dhahdo lacagtii quraacda lagu kar lahay lama hayo ee dhahay dabka siishi dabka asoon jeebkiisa waxba ka ogeyn gurigiisa hortiisa ka qaada maarta isha tookada ugu horeysa bajaajta $2 ugu horeeyo qaaday u soo diray 4 saac subaxnimana hilibkiisa canjeeridiisa diyaar intuu yimid cunay
wuxuu ka sharaf badan yahay ka karaami badan yahay kuwa mastarka inta soo bartay ka fekeraa gabar ay guursanaan $20,000 ee aroos ugu dhigaan guurkana waa barako waana khayr waana sida hore u sheegayo raas bacdal maal waayo markaa degto oo guursato ay wax ku soo galaan laakiin markaa keligaa tahay irsaaqadaadii nasiibkaaga shalay xumaayo meel ku gey waayo amaantana la boobooday ama sidee la joojiyaa leedahay aad waayahay cabdirasaaq aad u mahadsantaa runtii waxaan aad kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaligaad noo soo hortay barnaamij qurux badanna inaan kaa qabanno sharafeeno tahay waxaan rajaynayaa inaan dib barnaamijyo kale ugu kulmi doono sidan oo kale bulshaduna waxay aad u rabaan dabcan khibraddaas iyo aqoontaas meelo kala duwan aad u leedahay hadda arrimihii guurkaad ka falanqaysay inay ka faa'iidaystaan way rajaynayaan barnaamijyo noocaasna waa isugu imaan doona haddii uu sarreeya saamaxo aad u mahadsantahay aad u mahadsantahay ibrahim sida hore u sheegna barnaamijkaaga labeenta bulshada waqtigu ku soo aado xitaa waqti magaalada caana booro tiro badan lagu hayo asalaamu calaykum wacalaykum salaam saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii labeenta bulshada maanta waxaa martin oo ahaa cabdirasaaq xasan jidhi oo ah qoray buugaag 3 ah oo kala ah buugga bilan buugga 707 xikmadood iyo buugga kale la yiraahdo aleel cabdirasaaq waxa uu inta badan ka hadlaa sidoo kale arrimaha bulshada ee markaas taagan isaga oo ka mid ah dhalinyarada indhaha u ah bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan ka wada sheekaysanay mowduuc ku saabsan maxaa dhalinyarada ka hortaagan guurka maxaa saa cusleeyay guurka maanta sidoo kale wuxuu halkan dhalinyarada kula wadaagay qisooyin iyo sidoo kale talooyin runtii dhaxalgal ah aad uga mahad celinaynaa adigana daawanaya barnaamijka meelihii uu ka xiiso geliyay qaybta faallada ee nagula wadaag haddii aad hore noola joogtay aadan kaaga mahad celinaynaa la jirkaaga haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir halkan waxaan mar waliba uga hadalnaa barnaamijyo dhaxalgal ah oo bulshada faa'iido u leh tan iyo kulan muuqaalkeena dambe sidaas iyo nabadgelyo